buu qofku ku noqon karaaba isweydiin leh qof dhaqan fiican maadaama ay qiimaha intan leeg diinta iyo dhaqamada bini aadamkaba akhlaaqdu ku leedahay waa maxay waddada loo mari karaa ugu horreyn waxaan leenahay akhlaaqdu qaybi waa fitri waa abuur qaybi waa abuur qaybina waa muktasab waa wax la barto oo tadriib iyo training waa wax tababar loo galo si aad naftaada u dhisho oo qurunka uga dhisho oo aad ka dhigtid qof suuban oo hagaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimi nin ashaj cabdilqays la yidhaahdaa uu la socdo ninka kan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allah waxaad niyow leeday laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waa kala gedisan yihiin riwaayadda muslim waxay sheegaysaa alxilmu waalaanaah dulqaad iyo kaadsiinyo hubsiino waxaa tahay qof dulqaad badan oo dulqaadku qofku inaanu wax yari ihaara ku samayn inaanu kicin soomaalidu waa dad soodhaa inta badan waa dad uu aada ugu yar yahay dulqaadka iyo sabirku laakiin nebigu ninkan wuxuu ku ammaanaya inuu yahay qof deggan marka hore oo anaa leh deganaanshiye leh dulqaadna leh riwaayadda imaamu nasaa'i say sheegayso wuxuu ninkii weydiiyey shay-un jubiltu calayhi aw shay-un atakhallaqu ma wax ilaahay igu abuuray baa mise waa dhaqanaan kasbaday ma dhaqanaan yeeshay anigu iyo xirfad ku keenay baa mise waa wax ilaahay subxaana wa tacaala igu abuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa bal jubilta calayh maya labada tan adigu waa sajiya waa dabeeca ilaahay subxaana wa tacaala kuga abuuray idan qaybi baynu leenahay dhaqanka waa abuur oo waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya ciise ilaahay markuu maryamo siinayey ugu bushaaraynayey malgii u yimi wuxuu leeyahay waxaa rabbaa isoo diray si aan kuugu hibeeyo ghulaaman zakiya ghulaan la tahiray wiil fadiilo oo dhan wata waxay culammadu yidhaahdaan min طabcihi bay ciise ka mid ahayd in sidana ilaahay u abuuray subxaanaه wa tacaala idan waxaynu leenahay akhlaaqiyaadka qaybi waa abuur oo dee waynu kala cadho badannay hebel qofna waxaa laga yaabaa inuu marka laba eray la yidhaahdaba kaco qofna inuu degan yahay oo uu dul qaato waa kala sabir badannay waa kala abuurkeenna hore laakiin haddana waxay leeyihin culammadu qofka bini aadamkaa inta la tababaro ayaa la gaadhsiin karaa inuu dulqaad yeesho inuu cadhadiisu degto inuu gacan furaado wax allaaliya waxaynu fadiilo u naqaano wanaag iyo dhaqan u naqaano qofka waa loo rabayn karaa bay leeyihin haddii la rabeeyo dee xayawaan baa la rabeeya ama bini aadam baan la rabayn karaynin xayawaankaa kaynta ordaya ayaa la qabtaayo inta la tababaro waxaad arki qaar shabeel tababartay ama libaax tababartay libaax iyo shabeel haddii la tababaray ma qof bini aadam oo nool baan la tababari karaynin markaa saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qaybta mukhtasabka ee bini aadamku uu hanto ka warramaya baa wuxuu yidhi inama alcilmu biاtacallum wainama alxilmu bitaxallum waman yataxara alkhayra yucطah waman yatawaqa shara yuwaqah nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa daarqutni warinayo sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamay wuxuu leeyahy cilmigu barashu ku yimaada ambiyadaa waxyigu ku soo dega mooyaane dadka inta kale waxbay barteen waxaa khabiir la sheegayo caalim la sheegayo waa qof wakti iyo juhdi geliyey idan cilmigu barasha ku yimaadaa buu nebigu leeyahy wuxuu kaloo nebigu leeyahy dulqaadkuna dulqaad barashu isna ku yimaada oo qofka bini aadamka ahi waa la gaadhsiin karaa xad uu dul qaato laakiin wuxuu u baahan yahay ciddii riyaadada nafsiga ah tababarka iyo tadriibkaa dhabta ah siin lahayd sida jidhkaagaba loo tababaro qofka cayaartooga ah halkaa inta bannaanka loo saaraabaa la baraa jidhkiisa inuu flexible noqdo
inuu murqaya yeesho inuu ka noqdo qof bini aadama baa midna qaarka sare loo weynayn karaa midna qaarka hoose loo weynayn karaa waayo waa qofba sida loo tababaray kuwan feertama waa aragteen garbaha iyo tuurta iyo labada gacmood intaasaa weyn mijaha kuwaygoo kaleu leeyahy yacni maaha qof xoogan maaha sidaa awgeed waa kuwan long tenniska cayaara xataa labadiisa gacmood baa kala weyn tuu ku cayaaraa weyn ka guranna bidixdaa weyn ka midigtaana midigtaa ka weyn gacantiisa waayo tani exercise ka badan bay heshay ta kale intay helayso si awgeed qofka bini aadamkaa jidhkiisa waa la tababari karaa waxaa la mida naftiisana waa la tababari karaa sidaa jidhkiisa riyaada loogu sameeyey ayaa riyaada nafsiya loo samayn karaa oo qofka la bari karaa inuu dul qaato inuu hadal fiican ku hadlo inuu dhaqan wanaagsan yeesho inuu cadhadiisa qarsan karo inuu wax bixin karo inuu dadka ixtiraami karo inuu waayeelka tawqiirin karo waana waxa loo furtaba dee madaaristan iyo iskuulladan iyo dowladuhu waxay wasaaradka dhan u samaystay waa kan innagu waxaynu haysanaa meelaha la tago in muxuu cilmi soo bartaa la isweydiiya waxa ka fiican inaad tidhaha muxuu dhaqan barta ilmuhu muxuu isbeddel samaynaya si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xilmigu iyo dulqaadku waa wax la barto war ninkii khayr raadiya waa la siin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii shar ka dhowrsadana waa laga dhowri buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidaalik buu nebigu wuxuu tilmaamayaa xoog badnidu ma aha inaad qofka legdi karto ee xoog badnid buu nebigu yidhi waa qofka naftiisa hanta markuu cadhoodo bini aadam aan cadhooni ma jiro bini aadam aan hoosta ka guban marka erayada qaar ama waxyaaba qaar lagu sameeyaa aanay dhibini ma jirto laakiin waxaa lagu kala gedisan yahay jawaabta aad qaadanayso marka lagaa cadhaysiiyo miyaad cadhadaada xejin oo si qof miyir qabaad u hadli mise waad waalan oo waad burqan oo afkaad furan soomaalidu intuu waxuu doono dhiil iyo dherigama jabayaa buu yidhaha waan cadhooday dee lama waasho haddaad cadhooto waxay haddaad cadhooto inaad isku daydo inaad cadhadaada kontrooli kartid inaad naftaada xejin kartid si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xoog badnidu ma aha muuqaalkan sare iyo jidhka xooggane xoog badnidu waa qofka naftiisa kontrooli kara xejin kara nin saxaabiyaa nebiga u yimi oo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo calayhi salaatu wasalaam ila tali awsini nebigu wuxuu ku yidhi laa taqdab ha cadhoon markaasuu faradada miraaran waa ku celceliyey ila talidii xadiiska bukhaari warinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uma dhaafin laa taqdab markuu yidhaahda ila taliba ha cadhoon buu ku yidhi waxaa ka muuqata ninka kan inuu nin xiddo kulu lahaa nin sharaarad yaro loo kale laakiin waxaa la siinayaa daawada isaga u cuntanta nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaad arki doontaa mid le ila tali oo waxu sheegayo mid kaleoo wax weydiinayo o waxu sheegayo macnaheedu maaha inay axaadiistan iskhilaafsayin macnaheedu waxa weeyaan nebigu tabiib buu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadkan daweynaya bulsho uu yaqaanaybu wuxuu daweynayaa xanuunada ay qabaan waxa ay hayaan qof aad ku og tahay inuu sharaaro kululiyey hadduu ku yidhaahda ila tali dee talada ugu fiicane la siiyaa waxa weeya waa niyow deg ha cadhoon marka la leeyahay ma waxa weeyaan dhiiggaagu yuu karin oo cadhaha dareemin qof bini aadam aan cadho dareemini ma jiro qof bini aadam aan cadho dareemin marka la kiciyaa ma jiro laakiin waa maxay waxa weeyaan waa naftaada tababaroo waxaad ku tababartaa inaad gaadho walkaadimiina alghayd ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa kuwa af xidhaya cadhadooda kuwa kadim ku samaynaya ama xidhaya cadhadooda si awgeed ba xadiidkii inoo tilmaamaya wainama alxilmu bitaxallum dulqaadku inuu yahay wax la barto haddaba waxayn leenahay waxa la yidhaahdaa akhlaaqdu qaybina waa dabeecad ilaahay kugu abuuray waa kala deeqsisanay dadka badh baa ilaahay u dhaliyey inaanu adduunku qalbigoodaba degine gacantooda ay furaato laakiin haddaad qof muslim oo dhab tahay waad baran kartaa in gacantaadu furaato gacan furnidu maaha markaad xoolo badan hesho inaad wax bixiso waxa yar baa wax laga bixiyaa qofka waxa yar wax ka bixin karaa waxa badanna wax ka bixin karaa waa wax la baran karo inaad xilmi yeelato waa wax la baran karo inaad
dadka ixtiraamta waa wax la baran karo weliba schooling systemku iyo malcaamadaha iyo madaaristu marka aan afkaartani bislaanin innaga waxaynu dadka barraa markaa waxa weeyaan cabsi macallinku markuu soo galo yararku inay sidii jiir la qabtay iswada taagaanuun isnabaan markuu baxana inay booqaan waayo wuu baqayee muu baranin in la deganaado maad u tababarin qofkani inuu deganaanshiye heli karo maad u tababarin qofkani si xasiloon inuu socdo ee waxaad u tababartay ushaa markuu arko iyo markuu adiga ku arkaba inuu istaago markaad adigu baxdana inuu wixii doono sameeyo idan cabsidu maaha wax bini aadamka lagu tababaro bini aadamka waa la train gareeyaa si kale wax loo baraa si awgeed waxaynu leenahay akhlaaqdu wax la barto iyo wax abuuraba way leedahay ta abuurkaana waa la sii xoojin karaa meelaha aad hanjafka ka gaaban tahayna waa lagu kamili karaa ama waa lagu dheerayn karaa waxaanad ogsoonaataa waxay dhahdaan culammadu iyagoo aayad qur-aana daliishanaya aadanuhu laba ceebood buu leeyahay bay yidhaahdaan ama laba cawro laba ceebood oo u baahan in la qariyo buu wada leeyahay labada saw-aba ilaahay sutra buu u sameeyey wax lagu qariyo cawra waa cawradan jidhkii aynu naqaano waxaynu ku qarinaa dharka isla markaana waynu isku qurxinnaa dharka waxaynu u xidhannahay sababo badan laakiin sababta koowaad waxa weeyaan inaad cawradaada asturto sababta labaad aynu u xidhannaana waa maxay waa inaynu isku qurxinno oo dee cawrada maro kastoo aan isku duuduubna waa qarin lahayd laakiin waxaad mid gaara u tolatay ee usoo kaakaawadaysay ee saan ugu gashay inay liziina kuu noqoto haddaba hadday jidhka sare maradu asturto cawrada hoosena akhlaaqda asturta qofku hadduu akhlaaq leeyahayna waa asturan yihi hadday akhlaaqdu kugu yartayna cawradaadaa muuqata dadka badh baa markuu waddada kaaga soo baxaad sodhanaysa ka weeco nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu wuxuu yidhi si fiican u salaamagaasay ku tiri caaisha sawkii ninkan aad warkaa ka sheegtay bi'sa akhul cashiira buu ku yidhi markaasuu yidhi waa kuwa sharkooda lagaga nabad galo yacni dadka badh baad isku dayeysaa the minimum wakhtiga ugu yar inaad la qaadato waayo waxaad is leedahay keliya nabadgeli maysid haddaad wakhti badan la sii joogto sidaa awgeed qof kastoo inaga midi subaxii markaad toosto waad wejigaad dhaqataa afkaad cadayataa waad isnadiifisaa haddaad nin qolada sare ah tahay waad isa sii buufbuufisaa waxaasoo dhan waxaad u samaynaysaa aadamahaad u tegaysaa inaanu ama ur aan qurux badnayn kaa helin ama muuqaal fool xunle aan kugu arag waxa ka qurux badan jamaalul afcaalka in dhaqankaagu qurux leeyahay ayaa ka qurux badan marada sare la xidho taasaa u baahan inaad dadaasho oo aad isku daydo qof waliba wuu isogaya ceebihiisa qof aan is aqooni ma jiro mostly waad isgaranaysaa meelahaad hanjafka ka gaaban tahay haddaba waxaad u baahan tahay inta aanad cadayga iyo marada iyo cadarka iyo shaambooyada ka fekerin inaad ka fekerto qalbiga iyo saaad u daahirin lahayd saaad naftaada uga dhigi lahayd naf rabbaysan ilaahay wuxuu leeyay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr waa reer nebi aadama waxaan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeyahy libaasan yuwaari sawaatikum maro ama hu aa ku qarin kartaan cawradiinna iyo wariishan baa ilaahay yidhi iyo ku la ysku qurxiyo laakiin waxaa la sheego kale walibaasu taqwa dalika khayr baa la yidhi huga taqwada huga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan waxa kale oo dhan waxaan leenahay markaa waa laba hu oo la wada qaate yuu noqon ninkaad muhiimadda siinaysaa kan sare hooyada aabbaha ilmaha maryo fiican ma loo talo ciiddii maro ma la siiyey innaga dhammaanteen waxaad mooddaa
ka muuqaalku inuu inagu badan yahay dunidan materialistka aynu nimina dee dadkaba jeebkiisa lacagta ku jirta ku qiimeeya iyo kursiga uu fadhiyo oo humankaba waxa loo kala fadilaa sida jeebabka lacagta ku sitaan u kala badan yihiin laakiin lacagtu waa maadaadkan dhulka yaalla ka mid ah insaanka sayidka ah meesha tan insaannimaduna waxay ku dhammaystirantaa bacda alcaqiida waalcibaada dhaqankaa dhammaystira haayada bay yidhaahdaan markaynu ka nimaadno bacda rida allaah haayada laga leeyahay akhlaaqduna waa buluuqi alkamaali albashari wasacaada taama bay yidhaahdaan waa in qofka la gaadhsiiyo aadamnimada dhammaystiran aadamnimada dhammayska tiran leh waa in qofka la gaadhsiiyo walidalik ba waxaynu tilmaamaynaa nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam min dalaa'ili nubuwatihi waxaa ka mid a xusn اlakhlaaq waxyaabay culammadu u deliishadaan nebinimadiisa bal qabla almucjiza dad baa ku rumeeyey dhaqankiisa daraaddeed oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kamaal bashariya buu lahaa qof dhaqankiisu uu dhammaystiran yahay buu ahaa qof ilaahay taskiya siiyey ilaahay nadiifiyey oo xumo badan ka nadiifiyey buu ahaa saa awgeed waxaynu leenahay gruubkii koowaad ee muslimiinta ee islaamnimo nebinimadiisa waxay u deliishadeen dhaqankiisa khadiija radia allahu canha markuu qaarulxiraa ka yimi ee waxyigii u horreeyey ku soo degay isagoo kurbaysan uu yimi waxay u deliishatay nebinimadiisa iyo dhaqan wanaaggiisa kallaa wallaahi maa yukhziika allahu abadaa bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin sababtu waa maxay innaka latasilu raxm waxaad ahayd bay leedahay mid qaraabo xidhiidhiya oo qofka culayska ka qaada oo kaan waxaysane macduumkaa wax siiya oo martida soora oo dhiboo yacni waxay sifaynaysaa dhaqankii akhlaaqeeda u lahaa akhlaaqdani bay leedahay waxay tilmaamaysaa qof alla doortay inaad tahay qof xumo ku soo socdaan ma u muuqatid bay ku tilmaamaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wasfiga ugu weyne uu nebiga qur-aanka ugu qoray waa wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid ku sugan wainak waa jumla ismiya adawaatu tawkiid lagu bilaabay xarafka la isticmaalay waa calaa alculuw waxay yidhahdaan waxaan oo dhamme waxay tilmaamayaan baa yidhahda fii cilmi luga marka la eego nebi maxamed akhlaaq dhammaystiran diin dhammaystiran inuu ku sugan yahay ilahay wuxuu leeyay wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq dhammaystiran mid ku sugan baa tahay idan waxaynu leenahay akhlaaqdu waa min dalaa'ili nubuwaba waxyaabaha loo deliishado nebigu inuu nebi yahay bay ka mid tahay waxaa kugu filan xadiidkii bukhaari ee heraklis boqortooyadii ruum ninkii haystay abu sufyaan oo gaal ah oo aan muslim ahayn ayaa la waraystay markii waraaqdii nebigu uu diray ay u tagtay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi cidima ka joogtaa qoomkaa oo waxaa la soo helay 6 nin dabeetana abu sufyaan baa la waraystay warkii abu sufyaan la waraystee la weydiiyey hiragal 13 ama 14 su-aalood buu weydiiyey intiiba wuu uga jawaabay waxaanay wada tilmaamayeen dhaqankiisa wuxuu heraklis leeyahy markaa fain kaana maa taquulu xaqaa waxaa ii sheegteen hadday run tahay fasayamliku mowdaca qadamaya haatayn wuxuu hanan doonaa halkan aan jooga buu leeyahy waan ogaa in nebigu soo baxayo laakiin maan moodayn buu leeyahy inuu idinka mid yahay ee haddaan gaadhi karaya buu leeyahy waan isu xambaari lahaa waan isku dhibi lahaa inaan gaadho cagihiisaanan maydhi lahaa buu ku tilmaamaya waxa uu sheegay abu sufyaan waxay u badan yihiin dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmayay biografigiisa markii looga warramay buu wuxuu ka deliishaday inuu nebi yahay heraklis wuxuu ka deliishaday biografiga nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay abidar saxaabigii la odhan jiray markuu soo diray walaalkii uu yidhi war bal nin baa maka ka soo baxay oradii soo waraysa ninka xaalkiisa xadiiska kale bukhaari ku yaalla wuxuu leeyahay walaalkii unays waan soo socday oo waa nimi dabeetana ninkii baan dhegaystay
abu dar buu ku soo noqday abu dar wuxuu ku yidhi war maxaad ku soo aragtay ninkii ra'aytuhu ya'muru bimakaarimi alakhlaaq buu yidhi waxaan soo arkay nin dadka faraya dhaqamada kuwa ugu fiican ama u qurux badan leh nin faraya baan soo arkay saawgeed ayuha alxiba waxaynu leenahay haddii nebiguba risaaladiisii calayhi salaatu wasalaam uu cinwaan uga dhigay inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq aw saalix alakhlaaq labada riwaayadood ba imaamu axmed baa warinaye hadduu uga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinwaanu risaalaba inay tahay akhlaaqda inuu dhammaystiro waxa loo soo diray waxay culammadu yidhaahdaan akhlaaqduba waa 3 qodob bay sheegaan iyagoo aayad qur'aana daliishanaya waxay dhahaan waa badli lmacruuf wa kafi اlأdaa wa اxtimaali اlأdaa bay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku dhantay bay yidhahdaan waa qofkoo samaha sameeya badli lmacruuf wixii curfiga ku fiican ee macruufkee dadku wada qirayo qofkoo sameeya iyo qofkoo dhibtiisa dadka ka haysta aan isaga wax dhibi ka soo fulin iyo qofkoo dhibta dadka kale kaga timaada u dulqaato oo aan cadhoon ama markiiba boodin waxay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku koobantay intaana waxaa laga qaataa bay yidhaahdaan aayadda qur'aana ilaahay leeyay khudi alcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin ilaahay wuxuu nabigiisii ku yidhi khudi alcafw wa'mur bilcurf waacrid can iljaahiliin cafwiga qaado dadkana samaha far jaahiliinta iyo wax magaradka waxa kaa soo gaadhana ka jeeso qurux ma laha qofkii farta kugu soo taagaba inaad 5 ku taagtaa casriganna saasay u badantay wadaadkii wadaad kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu 10 ku yidhaahdaa siyaasigii siyaasi kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu 10 ku yidhaahdaa qabiilkii qabiil kale 2 eray ka yidhaahdaa isna waa inuu 5 gabay u tiriyaa waxeenoo dhami waxa weeyaan haddii midh la yidhaahdo waa in laeg inaan idhaahdo laakiin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuulah oo ilaahay waxyi ku soo dejiyey oo kamaalil akhlaaq leh ayay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan markaasaa ilaahay leeyay waa acrid can iljaahiliin lama odhanin nimanka kule waa saaxir iska dhici iyo nimankaa kadaabka kugu sheegaya kan sheegaya ee ilaahay wuxuu ku yidhi waacrid can iljaahiliin wax magaratada waxba ha u dhegtaagin idan dhaqanku wuxuu u baahan yahay in nafta la tababaro dhaqanku macluumaad maaha waa laga yaabaa in aqoontaadu badantay macluumaad tiro badan inay information badan inuu madaxaaga ku jiro ama mid diineed ha ahaado ama mid dunawiya ha ahaado laakiin aswa u naas baad noqon kartaa haddana iyadoo informationkaagu tiro badan yahay yes informationka tirada badan leh wuu ka qayb qaadanayaa haddaad trainingkaagu fiican yihi haddii dhaqankaagu wanaagsan yihi waxaa asali markaa wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu yahay mid dadka khayrka gaadhsiiyo kow khayru nnaasi anfacuhum ayuu nebigu tilmaamaya dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas dadka ka ugu anfac badan leh waxaa kaloo nebigu tilmaamaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimka dhabta ahi waa qofka muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa mid baa yidhi maxaan qabtaa markaasuu nebigu yidhi sidaa yee markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu yidhi sidaa yee markaasuu yidhi haddaan kari waayana nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi dee dhibtaaduun dadka ka hayso haddaad wax matarannimo isku og tahay gacantaadii afkaagu ha kuu xidhnaadaan haddaanad waxba kala qaban karin ummadda haddaanad waxba ku kordhin karin si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya akmalu lmu'miniina axsanuhum akhlaaqa xadiidka tirmidi iyo abi daawuud sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamayo in sha allah axaadiistan tilmaamay oo dhami ama waa xasan ama waa saxiix waxau nebigu tilmaamaya ina min khiyaarikum axsanukum akhlaaqa saxiixaynka xadiid ku yaalla ina min khiyaarikum xulkiina waxaa ka mida baa ilahay leeyay dadka marka la miiro inta xulka ahi waxa weeyaan buu nebigu leeyahy axsanukum akhlaaqa waa inta dhaqankoodu fiican yahay waxaa wada taqaaniin xadiidka 40 aynu ku wada dhiganno ee dhowr saxaabi nebiga ku yidhaahdeen awsini 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 riwaayadda abu dar ee ku taalla 40ku maxay sheegaysaa
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفيرسو وحلت المام إلهي سيدو لدغم لها إلهي سبحانه وتعالى كدور سنارتي سي غضب كي سي عرض ساليدو تقوى لك عليه